الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. markanna waa deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe. halkan waxaa ka soconaya guluf dagaal iyo diyaar garow ka dhana kooxaha argagixisada ah ee gabaad ka dhiganayo deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. maanta halkan waxaa soo gaaray mas'uuliyiin sarsare oo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya. xubnaha mas'uuliyiinta ah ee halkan soo gaaray waxaa qayb ka ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, xildhibaan Xaadoole, taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeyad Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar, General Khalid, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Mungab, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Masdire iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. mas'uuliyiintan ayaa halkan u soo gaaray sidii loo sii ambaqaadi lahaa dardargelinta howlgallada culus ee argagixisada lagu baacsanayo isla markaasna looga saarayo goobaha gabaadka ay ka dhiganayaan ee dhaca gobolkan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa bogaadiyay guulaha ay gaareen geesiyada qaranka ee halkan ku sugan, sidaas oo kale waxa uu kaga mahad celiyay dhabar adeeg ay markaasi muujiyeen. waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad ku sugnaydeen weliba socodkii khawaarijtana inaad darbi u dhigteen oo hakiseen. waa ku mahadsantihiin. waxaa noo dhiman inaana difaacyada ku jirin inaan horey u soconno. waad ogtihiin ciyaalka yararka iyo khawaarijtu waa dad tabar daran oo naftooda inay halligaan un u socda. marka waxaan u baahannahay haddii la yiraahdo oo loo kuurgalayaa dhufaysyada kala duwan. difaaci waa muddaa lagu jiray, difaacana waxa lagu jiray hore in lagu socdo. arrintaas diyaar waa u nahay soo maaha. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaa 20 neef oo geel ah ku wareejiyay geesiyada ciidamada qalabka sida ee ka howlgala deegaanka Xaaji Cali iyo deegaanada ku teedsan. waxa uu sheegay garab istaaga iyo taakulada in aysan halkan ku ekaan doonin isla markaasna mar waliba ay garab joogan geesiyada ciidamada qalabka sida. waxaan rabaa in halkan idinka cadeeyo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose Xamar macali wasiir wuxuu hiil iyo hool garab taaganahay difaaca dalka ciidamadana qalabka sida kuwa difaaca maaragtay ciidamada difaaca shacabka ay kula jiraan khawaarijta maaragtay ku bararay dhiigga shacabka. marka waan idin garab taaganahay. maanta wax yar aan idin soo gaarsiinana waa salaan sida gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe uu sheegana ma noqon doonto tii ugu dambeysay. waa bilow iyo bal inaan aagaga marno kadibna insha Allah taala waxaan si joogto ah idinku ballan qaadaynaa inaan idin garab taaganahay oo ilaa laga xoreeyo maaragtay khawaarijta dalka oo dhan. caasimadda Soomaaliya waxay garab taagan tahay ciidamada qalabka sida kuwa difaaca shacabka. xilligan gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka soconaya guluf dagaal oo argagixisada lagu baacsanayo isla markaasna looga saarayo goobaha gabaadka ay ka dhiganayaan. Sakariya Qaasim Bagax, deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe.